بسم الله أولا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دواء أصحابتك وحين جنرال كينج سي ام سي جنوان السلامي maanta cashirkan waxa uu ku saabsan yahay wallpapers. Wallpapers waa sawirka hadda ii saaran mobilka aad u jeediin. Marka sawirkan midkan iyo midka qurux badan sidee u samaysan kartaa adigoo isticmaalaya mobilkaada. Waxa kaliya aad u baahan tahay waxa waaye markaad sameynaysid app programskan oo la dhahayo Pixel Lab. Pixel Lab waxa xaqiiqa haddii aad fahantid inaad wax walba ku samaysan karto. Marka hadda si aan u sameyno video aan sii gudagalno waxaan u baahanahay inaan ogaano size-ka ama cabirka mobilka. Marka si aan u ogaano cabirkaas screenshot aan ka qaadaynaa. Screenshot waxa uu qaadanayaa meesha telefoon laga damiyo iyo meesha dhaxa aan isla qaban doonaa. Hadda si aad u jeedin screenshot aan ka qaadnay. Gallery ayaan tagaynaa. Screenshot ka sawirkan ka soo qaadno waa kana. saddex dhibco kor ayaa taabanaysaa. marka saddex dhibco taabatid details kan ay ku dhufanaysaa. marka cabirka waa kana meeshan ku qoran tahay resolution waa 540 960. marka waan ka laabanaynaa Pixel Lab ayaan galaynaa. Pixel Lab Pixel Lab sidaan ku soo bixi doonaa text marna iska deleedeena. hadda size-ka waa u weyn yahay oo jeedin oo bilac ay leeyahay oo si siman siran. marka marna anaga size-kaanay mid ka aan soo qaadanay aan gelinayna saddex dhibco taabanaysaa images aad leedahay. kadibna cabirka soo kul hore ay gelinaysaa mid hore inta gelinaysaa oo hay 540 inta waxa gelinaysaa 960. okay alada kadib markaas intaan dhaadid hadda oo inoo yara cabirkii wuxuu noqday telefoonka oo la kaaday oo yaraaday. kadib geeska aad taabanaysaa colors ay ka xolanaysaa. kadibna plus aad ka dooranaysaa. kadibna waxaad leedahay aad intaan si gudagelin waxaa la lixdan ugu horeyso oo kuwa u koreeya ah midka aad ka xolanaysaa. midka u horeeya waa geesgeesna u qurxisid dhir ama korkor ahaan u qurxi kartid kan geesgees ina kala ugu dari kartid iyo midkan saan ku soo laabanaya. hadda marka aniga kan ayaan rabaa midkan hadda ii saaran aan rabaa plus aan leeyahay kadib colors aan ka xolanaya. hadda marka kan green kan hormarsanaya. hadda colorkiinka waxa jida inuu saa in noqday wajida magaad colorkan saa in noqdo plus aan leeyahay hadana colorkan red ka ku darsanaya red. okay aan leeyahay hadda colors ka wajida haddii aad rabtidna colorka geeska masto kale asiga soo qaadaysa inta aad dhigaysaa redkan kan ayaa sii dheereynaysaa. kadibna plus aad leedahay dhexdooda waxaa gelinaysaa colorka aad rabto. hadda aniga waxaan dooranayaa blue. colorkan blue ayaan gelinayaa dhexdooda waan simayaa sawirka iska toosinayaa si iyo qaloocan. hadda jida saan u soo galay caarka waxa geeska u badanayaa bluega dhaxa leekisinayaa redkan geeskan waxa iska badanayaa. hadda saddex color ay noqday. kadibna balas aan siilay hadana colors kala sii gashanayaa. color kan gashanayaa colorkan geeskan ay soo maray cagaarkii. kadibna balas aan leeyahay waxaan sii gelinayaa colors kan. marka adiga hadaaritid color badan aad jeceshahay aad iska dhigi kartaa. hadda markaan intaan aan ka dhigayaa okay aan leeyahay kadibna calaamad sax ah aan saarayaa. kadibna save to image aan leeyahay save as image. hadda marka waxaa muhiim ah meeshan custom ay ku qoran tahay inaad taabato ultra aad ka dhigato si uu noqdo sawirkaada mid high ah ama sareeyo. kadibna save to gallery ayaa leedahay. hadda si aad u jeedaan sawirkii waa uu noo safmay.
hadda waxaan saarnaynaa mobilka dhaxa aad ku dhigaysaa wallpapers aad taabanaysaa hadda marka waa kana sawirkan soo habeynay sidaan ayuu noqday waxaan leenahay home to screen ayaan dhagsiinaynaa marka kana marka sawirkan ayuu ku soo baxay quruxda ayuu yeeshtay saddex wallpapers aan leenahay hadda sida ujeedin waa noo saarmay quruxda ayuu ku soo baxay marka sawirka hadda ujeedid waa kana qurux ayuu noqday marka hadda sidaan si ka sii qurux badan waa samaysan kartaa kalada waa sii badin kartaa qof walba dooqa ay ku xiran tahay hadda intaan aniga u tirigalay saanan ku soo baxay waxaan rajeynayaa inaad fahanteen sida loo sameeyo والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته aragsan axsan goobay gacanta anigu dhiibay agagarka waan bakaraad show astaanteedu waa mid gaariya